gordhow waxaa soo dhammaaday dagaalkii qaraaraa ee maanta ka dhacay degmada Alkowsar ee gobolka Shabeellada Dhexe dagaalkaas oo wax ka badan 3 jeer la isku soo laabtay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda ah ayaana iska barbar dagaalamay ujeedadu waxay ahayd in kooxda al-shabaab ay ka dulqaadaan degmadaas iyo deegaanada kale oo ku teesan oo ay ka mid tahay Ceel Cali Axmed halkaas oo saacadii la soo dhaafay kooxdu ay dhaqdhaqaaq ka waday iskuna soo dayday inay weerar ku qaado dhimasho iyo dhaawac badan ayaa jira waxaa la warinayaa jab kale oo culus in kooxda al-shabaab la gaarsiiyay oo dhabar jibin lagu sameeyay halkaasna loogu dilay dagaalamayaal badan oo ay ku jiraan hogaamiyaal warar hordhac ah oo aan ilaa hadda la xaqiijin ayaa warinaya in dadka la dilo oo ku jiro sarkaal al-shabaab ka tirsanaa baraha bulshadana caanka ah oo lagu magacaabo Nageeye Cali Khaliif oo ahaa abwaan sidoo kalena baraka ah jaacad ummadda Soomaaliyeed laakiin noloshii wanaagsaneed ka doortay nolosha durgalka ah laynta dadka shacabka ah iyo sidoo kale nabadiidka inuu ku biiray oo dadka Soomaaliyeed u diiday deganaanshiyaha iyo xasiloonida reer degmada Alkowsar waxay leeyihiin waxa aan aaminsanahay 70% inaan soo afjarna sharti ninkaas iyo hogaamiyaal kale oo culus oo kooxda ka tirsanaa oo markii ugu wardambeysay kamid aha ragga dhaqdhaqaaqa ka waday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe iskuna dayay in dadka shacabka ah ay dhibaateeyaan laakiin waayihiisii maanta ayay u egtahay inuu la soo afjaray sida ay saraakiishu sheegayaan wararka hordhacayna ay tilmaamayaan inkastoo weli aan la xaqiijinin geerida ninkaas xubno kamid ah ciidamada deegaanka oo aad u kala yaqaana deegaanka dhaqdhaqaaqa raggaasna la socday waxay sheegeen in ninkan oo kamid ah markii ugu wardambeysay dagaalamayaal kooxda ka tirsan oo dhinaca degmada Alkowsar ku soo qaaday duulaan isla markaana maanta la warinayo in halkaas uu ku dhintay jab kale oo culus ay arinta kamid noqon kartaa haddii geeriisa la xaqiijiyo maadaama hore sidoo kale looga dilay hogaamiye sare oo kooxdaas ka tirsanaa dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Cali Axmed kaas oo bagax lagu magacaabi jiray gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo gobolka Shabeellada Dhexena dadka shacabka ah ku dhibaateeyay dad badan oo odayaal dhaqan ay ku jireen hore u dilay dagaalkii maanta dhacay wuxuu kamid ahaa dagaaladii ugu cuslaa oo gobolkaasi soo maray waayadan waxaana la sheegay in xoogga dalka Soomaaliyeed oo u badnaa ciidamada deegaankaasi ka soo jeeda ee kuwa macawisleyda ah ay galeen dagaal soo malaabasho ah oo ay ugu tala galeen inay degmadooda xoreeyaan ama in kooxdu ay laayaan taasoo suurto gelisay iyadoo qasaaraha dadka deegaanka iyo ciidamaduba uu yar yahay haddana dib ay u qabsadeen dhammaan goobihii ay kooxdu dhaqdhaqaaqa ka wadeen isla markaana laga adkaado kooxda al-shabaab waa markii labaad oo halkaasi dhabarjab xoog leh kooxdu ay kala kulmayso guud ahaan gobolka waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh sidaan oo kale hore waxaa loogu jibiyey Saakay deegaano ka tirsan degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan halkaas oo lagu laayay dagaalamayaal badan oo al-shabaab ka tirsanaa gaadiid iyo hubna looga qabsaday sidoo kalena meedkooda uu daasan yahay Bulaburde oo ay maanta ku dul shirayaan ama ku dul ciyaarayaan dadkii deegaanka oo ay ugu horeeyaan ciidamada macawisleyda degmada Bulaburde 24 saac gudood weerarkii ay soo qaadeen al-shabaab labadii meelba waa Bulaburde iyo sidoo kale Alkowsar waa lagu jibiyay waxaana ay la kulmayaan qasaarihii ugu badnaa oo isugu jira dhimasho dhaawac guul daradii ugu cusub ee kooxda soo gaaray tan oo sababi karta ama arintan oo sababi karta inay dib u gurtaan oo ay joojiyaan dhaqdhaqaaqii ay maalmaha wadeen wali waxa soconaya abaabul xiisad dagaalna way taagan tahay daqiiqad kasta dagaal ayaa la filan karaa meel kasta ayuu ka qarxi karaa maadaama dhowr jiho ama dhowr aag ay xiisadu iyo colaadaba ka taagan tahay dhaqdhaqaaqda ciidanna ay ka socdaan wixii warar ku soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyada dambe haddii Allah uu dilo idmo adina aragtidaada qaybtoose faalada noo hore muuqaalkana si shargaray haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biir caruurtu waa hadiyad ilaahay oo ku deeqo ama ugu deeqo waalidiinta sidoo kale waa taran waxa ay qayb ka yihiin farxadda guriga iyo lamaanaha farxadooda waxaa jira waqtiyo ay mudan yihiin in caruurtaasi waqti la geliyo lala dabaaldego farxad la siiyo qalbigoodana kama go'i doonto bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maalmo ka dhimayeen kadibna waxa ku xiga maalmihii dabaaldega ee ciida bisha Soonfur diyaargarow xoog leh ayaa socda kaliya kuma filna canugaaga inaad dhar u iibisid sidoo kale wuxuu kaga baahan yahay maalintaas inaad waqti siiso oo la damaashaadid meelaha ugu qurxoon ugu habboon oo caruurtu ku dabaaldegi karaanna la geeyo beertan waa beerta Daarusalaam oo kamid ah meelaha ugu qurxoon ee magaalada Muqdisho oo caruurtu loogu tala galay inay ku damaashaadaan xilliyada ciida iyo maalmaha kale ee fasaxa ah waqtiyo badan iyo sanado badan ku soo qaadatay laakiin sanadkan waa ka duwan tahay sanadihii hore
agabadii horena waa ka duwan yihiin kuwa hadda la keenay oo horumarin ayaa lagu sameeyey lacag badan oo malaayiina la geliyey waxaana loogu talagalay in dadkii Soomaalida ahaa caruurtoodii ay halkaasi waqti kula soo qaataan maalmo qurux badanna ay halkaasi ka helaan haddaba maxaan ku soo arkay halkaas waxaan ku soo arkay goobo dalxiis oo qalab casri ah la keenay oo Soomaaliya aan laga helin iyo sidoo kale goobo jawi nasiina in lagu qaato loogu talagalay xayawaanaadkii oo noocyo kasta leh oo ay dadka Soomaalida ah u damaasho tagi karaan kaliya carruurta maan xataa dadka waaweyn ay daawan karaan agabada halkan yaala oo rag iyo dumar iyo carruur ay ka faa'iideysan karaana waa kuwa ku cusub wadanka Soomaaliya waxaana suurto geliyay beerta Daarusalaam inay sidaa noqoto iyagoo dadka Soomaaliyeed loogu talagalay in la jaan qaadaan dunida kale ee horumartay dhacdooyinka ama waxyaabihii qaar aan soo arkay waxaa ka mid ahaa qalabkan oo aniga xataa markaan koray aad u jeclaystay wixii aan in muddo ah baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida ka daawado maanta aniga ayaa saaran tower right-kii Daarusalaam ku yili waa markii ugu horeysay waxaan rajeynayaa inaan nabad ku tago nabadna ku soo laabto marka laga hadlayo siyaasad iyo ishaysi iyo wax kale laga hadlayo waxa laga hadlayaa arrimihii dhalinyarada bulshada caruurta horumarka magaalada Daarusalaam wax qurux badan ayaa la oo dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ogyiin inta kale ee aan ogeyn waxa leenahay meel dalxiis oo deegaan oo jawi degan ah ayaa halkan ku taala markan nagaliya hawada ilaa amaansaday Daarusalaam sidoo kale waxay leedahay qayb ismuhiim buul ah oo ragga iyo dumarka loogu talagalay dumarkana waa gaar raggana waa gaar ayadana waxa idinkaga hayaa sheekada qaybtan hadda joogo waa qaybtii dabaasha ama ismuhiim buulka waliba waxa ajiiba rag iyo dumar laba qayb ay kala leeyihiin qofka halkan uu ku dabaalanaya oo ku raaxaysanaya waqtigiisu ku qaadanaya kadibna wuxuu leeyahay musqulihii oo dhowr xaba ah oo loogu talagalay inuu isku biyo raaciyo markii uu dabaashiisa dhameysto halka hadda aan joogo qaybta ragga waxa jirta qaybta kale oo dumarka oo ayadana sidaan oo kale ah isma arkayaan ragga dumarka iskuma dhawa waxa loogu talagalay qof kasta oo kale ajnabi ah inuu halkaas waqtigiisa ku qaato oo ku dabaasho ku nasto dabadeedna soo qabaysto markii ugu dambeysana hawlihiisa kala qabsado waa meel wax kasto ama nooc kasto oo qofka ku raaxaysan la ama nafis ku dareemi la markuu shaqada ku soo daalo waxbarashada ku soo daalo safar ka yimaado problem kala haysto meesha uu ku nafisi lahaa oo dhan baa beertan ka dhax diyaarsan beer Daarusalaam hadii noqoleed wali la koray aad arkayseen xayawaanaadkii meelihii cawska iyo dooggo lagu nasan lahaa ismuhiim buulkii doontii carruurta ama qofka kala weyn raaci karay nooc kasto maqaayadii ku dhex yaalaan wax cunto ka heli kartid kubashiinka ku cabi kartid qof yar qof weyn qof problem iyo fikir haysto meesha ku nasan lahaa caruur waxbarashada iyo guriga ku soo daala meesha ku nasan lahayn nooc kasta oo aad ka helaysaa ku soo dhawaada beerta Daarusalaam kaliya intaan ma waxay leedahay doontii la raacay oo badda oo kala inta loo sameeyay carruurta ku dabaalan karaan waxay leedahay agabka hadda arkaysan oo la korayay waxay leedahay qaybihii xayawaanaadka waxay leeyihiin goobo kale intooda aad u qurux badan oo loogu talagalay carruurta inay ku damaashadaan hooyadii jecel awlaadeeda iyo aabihii jecel ee awooda waxaa hortaala inay ka faa'iideystaan fursadaas waa fursadii ugu weyneed 70% oo qiimo dhimis ah ayaa loo sameeyay dadka raba in halkaas u damaasho tagaan oo ay waqti ku soo qaataan maalmaha ciida waana qiimo dhimistii ugu ballaarneed oo ay maamulku sameeyaan sababta qiimo dhimista u sameysay beerta Daarusalaam waxay ku sheegeen iyagoo tixgelinaya duruufaha dhaqaale ee wadanka ka jira iyo in carruurta Soomaaliyeed ee farxaan ayay ku sababayeen inay u sameeyaan qiimo dhimis ballaaran oo tii ugu weyneed qoys kasta oo ka kooban 6 qof ama ka yar waxay ku jiran karaan hal kaad oo la yiraahdo mabruuk halkaas kaar ayaa waxa ay ku qaadan karaan waqti kasta waana $50 qayb kasta oo beerta kamid iyo meel kasta oo kamid ayayna kula damaashaadi karaan halka markii hore lacag intaas ka badan ay ka bixi jirto haddaba ka faa'iideyso maalmahan ciida iyo farxadda iyo damaashaadkaas iyo agabka halka yaala qoyskaaga iyo carruurtaada uga faa'iiday aad iyo aad u mahadsantahay aragtida qaybta safaalada Noorab muuqaalkan si shir gari haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir